السلام عليكم كسودو كانال كينا فضلا سبسكرايب صار لايك شير كومنت sheekadani waa mid aad u cabsi badan waxaan ahayn aniga walaashay si aan u soo booqano ayadii oo tuulo naga fog degan waxaan isu diyaarinay goor dambe oo habeen si xigta safar inaan galno lugta ah labada tuulo dhexdooda waxa ah kaymo cidla ah oo aan cidi deganayn waxaan go'aansanay inaan u aadno tuulada ayadii deganayd dabadeeto waxaan u qaadanay wax kasto safar u baahnaa oo ay kamid ahaayeen cunno iyo cabitaan markii aanu cabaar soconay waxaan maqlay sanqadha iyo dabaylaha cabsida dhirtu ay sameynayso kadib cabaar markaan sii soconay hadana waxaan aragnay si muuqaal qof suurad bani aadam leh oo aad ka naxayso walaashay iyadoo awalba hore uga cabsanaysay dhirta cidlada iyo kaymaha aad ayay hadana u sii cabsatay waxayna igu tiri walaalle waxaan ka baqayaa inaynu caawa nafteenu halis gasho fadlan dib inoo celi intaynu nabad qabno ama talo iyo xalkeen aynu kaga badbaadno dhibaatadan walaashay oo ku kalsoonay nafteeda waxa ay samaysay arrin cajiib ah markiiba waxay soo jeedisay talo ah walaalle waa xilli habeen ayay ku sii dhowdahay balse waxaan ka baqayaa in baalujidka inagu cunaan maxaa xal ah walaashay waxaan ku qanciyay inaan socodkeena sii wadano ilaa aan ka gaarino tuuladii ayadii deganayd oo bartilmaameed noo ahayd meesha ugu dambaysa kadibna waxaan mar kale aragnay muuqaalka dhirtu raxanka cabsidu ay sameynayso waxyaabo suuradda bani aadamka leh oo marba horteena imaanaya ugu dambeyn muran yar kadib aniga walaashay waxaan ku qanacnay taladii ahayd inaan geed dheer fuulo si aan uga badbaadno baalkaas waxaan halkaas ayaan uga badbaadnay aroortiina aan ku tagnay tuuladii iyo goobtii aan deganayn